cadceed balaayiin sanno xidigahu waxa ay saamayn jireen tamar bilaaxad ah fallaadho cadceedeed ahaan tamartaasi waxaa laga soo ganay qorraxda si xidhiidh ah waa wax aad u awood badan tamarta cadceeddu ayaa ah ta isu dheelitirta habka cimilada ee dunida cadceeddu waa aasaaska nolosha dunida oo dhan isku soo duuba waqooyiga Norway ayaa ah goobta ugu hawada wacan cadceed iyo neecow ahaan qaaradda oo idil 23 digrii ayay hawadu gaadhay Tromsø waa rikoodh cusub xilli sanadeedkan habeen wacan oo wanaagsan halkaas ayaynu nahay ma taqaanaa farqa u dhaxeeya hawo iyo cimilo hawo waa isbedbedelka sida roobka heerkulka daruuraha iyo cadaadiska hawada ee maalin ka maalin isbedbedela cimilo waa isbedelada oo la isku soo qaaday waqti dheer cimilo waa tusaale ahaan isbedel hawo ee 35 ama wixii ka badan nabadgelyo mararka qaarkood aad ayay u adag tahay in la saadaaliyo hawada waxa ay saadaashu ku salaysan tahay habdhaqan cimilo oo dhib badan habdhaqanka cimilada ayaa ka kooban qayb hoosaadyo badan kuwa ugu muhiimsan waa hawada sare badda dhulka deegaanka dhirta iyo caleenta iyo barafka kuwaasi dhammaan way isku lamaan yihiin isla falgalaan laakiin marka hore saamaynta koowaad waxa ay ka bilaabantaa cadceedda dunidu waxa ay ka heshaa dhammaan tamarta cadceedda maadaama uu dunidu ay goob tahay wax jira in falaadhaha cadceeddu ay dunida kaga dhacdo goobo kala duwan dhulbadhuhu taas uu ugu kulul yahay cidhifyada kala duwanaanshaha heerkulka ayaa dhaqaajiyay habdhaqanka cimilada labada qaybood ee ugu muhiimsan saamaynta hawada sare ayaa kala ah dabeesha iyo badda agagaarka dhulbadhaha waxaa ka kaca neecow kulul kuna wajahan cidhifyada dunida kala duwanaanshaha heer kulka qaybaha dunida ayaa abuura dabeesha sidoo kale sababaha in baddu ay dhaqaaqdo mawjado kulul ayaa u hayaama cidhifyada qabow ee dunida taasi muhiim ayay u tahay dadka ku nool waqooyiga dunida mawjadahan kulul la'aantood dhanka dhulkaasi wax heerkulkiisu la mid noqon lahaa heerkulka Greenland isbedel yar oo ku yimaada xiriirka u dhaxeeya neecawda iyo badda ayaa isbedel weyn ku yeesha hawada guud ee dunida taasina way dhacdaa xilliyo qaarkood oo waxaan lagu magacaabaa dhacdada El Niño waxa dhaca in dabeesha galbeedka qabata ee badda Pacifica jihada in ay bedesho mawjadaha badda ayaa ku beegan koonfurta Ameerika daruuro ayaana abuurma taasina waxa ay sababtaa in qaybo badan oo hawada dunida ay isbedesho roob iyo daadad ayaa ku dhufta dalalka Peru iyo Ecuador koonfur bari Aasiya iyo waqooyiga Australia abaaro ayaa ka dhaca cirifka koonfureed ee dunida ana baraf ayaa sii saayida haddii isbedel dhowr digrii iyo heerkulka qayb yar oo badda ah uu ku yimaad waxa si xoog ah isbedelaya qayb badan oo badda ah haddii isbedel ku yimaado heerkulka dunida cawaaqib badan ayaa imanaya taasina waa hubaal cimiladu waa hawada xilli aad u dheer 2007 waxa ay cilmi baadhayaal Mareykan iyo Yurubaan ku guuleysteen in ay Greenland ka qodaan tiir baraf ah oo dhererkiisu dhan yahay 3 kiiloomitir tiirkaas isbedelkiisa cimilo ee waqti dheer ayaa la qoray si aynu u fahanno cawaaqibka isbedelka cimilo ee waagan ayaa aynu baaraynaa taariikhda isbedelka cimilada ee waayadii hore waxaana aynu baaraynaa barafka si aynu u fahanno bal eeg marka aynu hayno tiir 3 kiiloomitir dhererkiisu yahay barafka dhanka hoose ee tiirku waxa uu jiraa in ka badan 4000 oo sano halka barafka korka sarena cimrigiisu yahay oo qura 150 ilaa 200 oo sano jir marka barafku soo da'o oo isku dhago waxa dhacda in hawo yari barafka isku dhigay ay dhexdiisa ku xidhnaato marka shaybaadh hadda lagu sameeyo xidhmada yar ee barafka ah waxa xog laga helayaa halkii ay ahayd hawadu waagii barafkaasi da'ay iyo carbon dioxide ku jiray hawada sare waagaas marka shaybaadh kala lagu sii kordhiyo baaritaanka kiimistiriga barafka waxa laga helayaa heerkulkii waagaas wax shaki kama jiro in cimiladu weligeedba ay isbedbedeli jirtay eeg balaynkan buluug ah ee heerkulka ah isbedel xoog ah ayaa dhacay xilliyo qabow iyo
qaar kulul waxa aynu aragnaa wakhti barafku dhulka haystay iyo weliba marar badan oo isbeddello waaweyne ay dhaceen kuwaas oo qaarkood heer kulka dunida ilaa 10 digrii 100 sanno isku beddelay sababo badan ayaa kalifa in heer kulka kor iyo hoos aado qarax fulkaano oo hawada sare boorka ka buuxshay ayaa dhimi kara heer kulka isbeddelka cadceedda ayaa iyana kor iyo hoosba u dhigi karta heer kulka dunida waxa kale oo sababi kara isbeddel cimilo oo weyn dhagxaan samada ka soo dhaca marar dhif iyo naadir ah waxa kale oo aynu isticmaali karnaa tiirka barafka ah in wax uu inooga sheego cimilada waagan eeg bal waxa dhacaya marka aynu eegno xariiqda siideynta carbon dioxide iyo heer kulka mararka qaarkood waxa horraan kordhaya ka hor heer kulka mararka kalena heer kulka ayaa ka horraan kordhaya waxa ka dhaxeeya heer kulka iyo carbon dioxide xidhiidh waxa aynu ugu dambeyntii eegaynaa laynkii qiyaas ahaan 1850 kadib markii warshaduhu bilaabeen laakiin aan weli la bilaabin in shidaalka dhuxusha iyo gaasta la isticmaalo waynu ognahay in xidhiidhowga ka dhaxeeyo carbon dioxide hawada ku jira iyo heer kulka dunida waynu ognahay in cadadka carbon dioxide uu aad u kordhay boqolkii sano ee u dambeeyay taas waa la isku wada raacsan yahay cawaaqibkuna waa mid qalabsanaan kara isagoo oo kaashanaya gaas kale ayuu carbon dioxide dunida dusheeda sare ku samaystaa gidaar ku wareegsan dunida sidii busta oo kale ayuu dunida gidaarkaasi ku noqdaa ayna saa'idiisa heer kulka ficilkaasna waa waxa aynu ugu yeedhno drifthuseffect taas waa wax wacan taas la'aantee heer kulka dunida celcelis ahaan 18 digrii ayay ahaan lahayd dhibtu waxa weeye innaga oo dhumucdii gidaarkaas kordhinayna marka aynu isticmaalno shidaalka dhuxusha iyo gaasta mar kasta oo carbon dioxide hawada sare kordhaba way sii kululaanaysaa waxaana ay sababaysaa in qaybaha kala duwan ee habdhaqanka cimiladu ay isu sameeyaan siyaabo cusub tusaale ahaan marka dunidu yara kululaato waxa milmaya barafka taasina waxa ay keenaysaa in barafku ka qaadmo dhul intii hore ka badan falaadhaha cadceedda ayaa ku dhaca dhulkaas keenayana heer kul sii siyaada waxyaalaha cadceedda waxa dib u celiyaan iftiinka badan iftiinku kuwa madmadoobi dib u celiyaan waad aragtaa in garanka cadi ka qabow yahay ka madow heer kulka kordhay waxa uu sii dardar gelinayaa milanka barafka dhul iftiin ka sii badan ayaa soo baxaya keenayana in kulaylku sii kordho taas waxaa la yidhaahdaa tilbaaka coupling habdhaqanka cimiladu waxa uu ka kooban yahay waxyaabo badan oo sida kuwan saameyntoodu isku noqonayso wanaag iyo xumaanba qaarkood waynu fahansannahay sida ay u shaqeeyaan qaarna ma ogin meelo badan barafku waxa uu qarka u saaran yahay milimid kaas oo keeni kara saameyn isku noqota mala waa wakhtigii ay ku habboonayd in wax laga qabto intaanay isbeddelka cimiladu gaadhin meel aan laga soo noqon karin hawadu waa dabaysha iyo kulaylka oo loolan aan dhammaanayn ku jira cimiladuna waa isbeddelka hawada ee muddo dheer maxaa dhacaya haddii heer kulka kordho 1, 2 ama 3 digrii waxaa dhici kara roobab badan iyo abaaro dabayshu jihada ay u beddeli kartaa mawjuuduhuna dhinacyo kale ayay u rogman karaan dhab ahaan uma ogin sababta oo ah habdhaqanka cimiladu waxa ay mar kasta isku daydaa in ay iyadu dhiili tir isku samayso